iminkan waxaan rabaa inaan u yeedho Cabdi Cumar iyo Yusraad oo caawa halkan doonaya inay hadiyad qurux badan ku guddoonsiiyaan ambassadorkii hore ee Maxamed Cali America oo caawa xalfadan quruxda badan aynu halkan ugu diyaarinay inta ka soo qayb gashana markaleena waa mahadsantihiin sida quruxda badan ee nidaam kale meesha caawa waxay isugu yimid dad wada bartikoolaada waaw dad wax soo wada bartay ruuxiya gariir karimaysa si quruxda badan fadhida bilaa buuqa marka waa mahadsantihiin ambassador markale soo dhawow caawa looma kala hadhin xalfadan hooyo Siraad iyo Cabdi Cumar ayaa iminkaan rabaa inaan bal u dhiibo sacabka hooyo Siraad halkan soo istaag عبد عمر الدنيا دي وهالكا يبقى معمولة يعني ميكروفون كا كان هو يودي بويسراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا قف كستعاء وحفلة كسوق بكلي ولا الكي ماركتي إن محمد علي نجا وقيمجون إليه هاي ولا الكي وحوي إن qofkii waxa weeye samirka aan ka bartay runtii qofkii barayna caawa ma noola xamar 3 sano anigoo tagin aniga iyo Cabdi waa qofkii soo dhaweeyo xaflad noo dhigo hotel oo VIP nagu qaaday 2016 haddana Kenya waa qofkii ugu soo dhaweeyo waligay tagin diyaaradda inta delayed noqotay 8 hours airport taagnaa because uu ka baqay magaalada hadduu u noqdo waa saxmad badan tan Nairobi waa la yaqaanaa inay maaragtay ay soo noqon waayo intaas ii taagnaa anigoo ka murugaysan odaygayga dhibaatadii loo geystay ama ilaa hadda aan loogeyn qofkii oo asaga ay baray dhibaatada u geystay buuggiisu iigu soo dhiibay gurigayga buuggii markaan aqriyay qof kasta waan cafiyay mar rabin awal ilaa yawmidiin inaan cafiyo qofkii odagayga dilay laakiin horkaan Maxamed Cali buuggiisa aqriyay oo wax walba aan ka bartay gabadhiis yarta iyo arintii dadkii dhibka u geysto hal nin ka nool yahay halkii nin uu cafiyay intuu life ugu yimaaday aad iyo aad ugu mahad celinayaa samirkan ka baranay aniga hawl badan ay taala wiilka yarka iska dhib oo hawshiisa iska badan tahay markaan israahdo na kasta ilmaheedii yara ki caawin lahaa iyadu ordaya ki caawinta aad ka rabtaa adiga caawinaysa hadda waxaan israa Maxamed Cali buuggiisa gadaal ugu noqo wixii asagu ku samray geerigu ku samray adigoo stiilin wax ku baranayo ku caawinayo ku daba joogaad wadataa marka aad iyo aad ugu mahad celinaya walaalkay iyo inta xafladda soo qaban qaamisay iyo qiimeyntuuna qiimeeyay aad family ahaan iyo Cabdiraxmaan maaragtay intuu ka soo maray maaragtay aad iyo aad ugu mahad celinaya iglana walaashay waa mahadsan tahay adigana Nairobi waa ugu soo dhaweysay aad iyo aad kugu mahad celinaya adigana walaashay dhamaantiina waan salaamaya salaam calaykum waraxmatullaahi aad baad u mahadsantahay runtii waa arrin qiiro badan marka hadiyad bay rabtaa inay guddoonsiiso ambassador Maxamed Cali America ما سنت هاي أنت شكتنا وحواي وأنا ما سنت ولا شيء. هديتي ولي من دمان ambassador محمد علي أمريكا وحاول كاجا إنه كوجوسين يا هديت كله مهد عبد الرحمن ولا الكيس مهد ويان عبد الرحمن وإنا كاسر ولا الكيس مركا ما حق سر. أوكي. Some people uses their power to influence people to like them.
But Ambassador uses his humanity to attract people to his life. Salaam alaikum everyone, my name is Abdi Omar and I am the founder, director, CEO Dabdi Enterprises. Tonight it isn't about me. It's Ambassador Muhammad Ali. Night. We are here because of our love for him. Ambassador is a perfect example of being Somali. Over 70,000 Somali people follow him. By the way, congratulations getting on verified on Facebook. Ladies and gentlemen, he is a role model of over 70,000 people including myself. His personality is a gift from Allah. He can build immediate relationship by talking to you. His wisdom is amazing. He wants to help people to do better in their lives. Yasmin's foundation was created that should have broke him. May Allah have mercy on her soul and may Allah grant her the highest place in heaven. He helps disabled children to live, not survive every day. I will be real with you guys. As a disabled person, even a person without disability, I respect him so much because he took responsibility to get people with disability a life that they want not given. Don't get me wrong. We say Alhamdulillah with everything that Allah gives us. But Allah love people loves a person who works hard and take responsibility of people who has less of them. I am a speaker because I want to change people's life. To change people's life, you don't need to be a speaker, because there are a lot of ways to do it. Ambassador inspired thousands by being a human. That shows he cares for people. Power is limited, but love is limitless. Ambassador traveled throughout Somalia, every town and city. They welcomed him with open arms and love. Not everyone can do it, but he could. It shows everything is possible if you are close to Allah and show love for everyone. Disabled or not, we all deserve to be respected. I strongly believe that you don't need to be a disabled person to be a disabled activist. To me, Ambassador is one of the best disabled activists. He has very special place in our hearts. Uncle, thank you very much because now you have inspired the next generation to stand up for disabled people. May Allah give you the rewards in this and next life. Inshallah. I want to finish by saying, with believing in Allah there is no limit what you can do, but first you need to earn by hustling and believing in yourself. Never give up. Before I say Salaam alaikum, can I give you something, Uncle? aad buu mahadsan yahay Cabdi Cumar telefoonka بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo walaashay Amal oo soo qabanqaabisay xafladan iyo Maxamed Saciid aad iyo aad u mahadsan yihiin iyo ka soo qaybgalaasha. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo wiilkaas oo adeerka u ahay Cabdi Cumar. haloo sabciyo Cabdi Cumar Abdi aniga asaga waxaan ku xiriirnaa social media. waxaan ku sheekaysanaa social media. waxaan saaxiib ku nahay Facebook. markii aan bilaabay buuggan inaan daafuro waan ka bilaabay Muqdisho. wuxuu ugu yiri soo wadiyay wuxuu dhahay adeer goorme London keenaysaa buug. markaa uu sheegay dadkii joogay habeenkii u horeeyay oo London aan ku daafurayay waxaa lagu dhigay meel South-ka ah. habeenkaasna wuu joogay. maalmood markaan dhahay waxaan sameynaynaa mid labaad lagu sameynayaa London. wuxuu yiri waa imaanayaa Cabdi wuu kafta badan yahay. markaan soo galay ma arkeen meesha fadhiyo waxaan qoray message waxaan adeer xagee joogtaa. wuxuu adeer wuxuu dhahay waa dahay wuxuu dhahay waa iska baxo dhahay. marka Cabdi waxaan kale ugu mahadcelinayaa
caawa qubadu aqriyay iyo tii habeenoodu aqriyay oo aad mataqaanaa u ahayd inspirational oo mataqaanaa kulligeenba na dhiirigelisay waan ku mahadsan yahay maamada kadaalika iyo walaalkiis oo idin la socda waa u mahad celinayaa idinkan waa mahadsantihiin waxaan kaloo mahad celinayaa fanaaniinta abwaanada royal waakana maxamed yaxye vitaminos yaaska xaaji waa la badan yahay iyo abwaanka kale asna wuu joogaa colaad waa u mahad celinayaa walaasha egraan waa u mahad celinaya idana waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo buuggaas hadda la sheegay buugga danjire buuggaas waxaan qorayay muddo 3 sano ku dhawaad ah sababta u qor wax kale ma ahayn waxay ahayd in inta la sheegay hadeertaan oo muddooyin mataqaanaa 2007 ilaa 2015 aan safiir ka soo ahaa Kenya oo xilli aad u adag ahayd uu sheegay royal uu sheegay oo xilli dawlad kumeel gaar ah wadanka ka jirtay dawlad aan xoog lahayn dawlad marka hore ku shaqeynaysa Nairobi haddana aaday Jowhar Baydhabo Xamar mataqaanaa iyo markii dambe xataa dawladdii ay xoog yeelatana waa la soo joogay Kenya oo ay ku noolaayeen ama ay ku nool yihiin hadeertaanba qaxooti fara badan ha u horeeya xerada qaxootiga Dadaab oo ah xerada adduunka ugu weyn ee qaxooti Soomaaliya ku nool yihiin iyo Kakuma Nairobi oo degan yihiin Soomaali fara badan hadayto dadka aad bay amaaneen laakiin safaaradda aniga kaliya safiirka ma ahayn waxaa joogay qunsulaa joogay waxaa joogay shaqaale kale kulligood amaanta way mudan yihiin kaliya wax ma qabanin ayagana waxbay ka qabteen mataqaanaa wixii la sheegay wanaag oo dhanba buugga marka waxaa uga hadlay wixii mataqaanaa nolosheeda ka soo bilaabay buugga haddaa aragteen waxaa u habeeyey oo ku qoran beejka u horeeyo aabe iyo hooyaday u habeeyey waalidkay oo aan ku daydo xasha Allah ma gaari karo hooyaday waxay dhimatay anoo jira 9 sano xaw muddo gacal ayaa la dhahaa aabahay Cali Nuur Xuseen sidoo kale asna wuxuu dhintay 2010kii Allah u naxariisto dadku waxay yihiin aan ku daydo hooyo waxay ahayd qofka nagu abaabisay nagu tababartay inaan dadka kaalmeeno ayaan ka bartay ku daydaa xasha Allah ma gaari karo mala kasta aad tagal waan ka sheegaa waxa hooyadii waxaan dhahaa qofka ugu qurux badan adduunka aabay Allah waxdiisa wuxuu nagu abaabiyey mataqaana asagoo yar ayuu baadiye ka yimid nasiib uma yeelan inuu dugsi hoose dhigto dhexe dhigto iskuul kusoo mataqaanaa kusoo dhigto mataqaan ma ku yaraa aabay asagoo yar ayuu intuu yimid xamar uu wax bartay mataqaanaa habeenkii wax baran jiray waxyaabaha nagu dhiirigelin jiray waxaa ka mid ahayd na dhihi jiray waxaa nasiib u yeelateen inaad wax ku heshaan ku barataan lacag la-aan waxbarashada aad mataqaanaa xoog u saara dadkana in la kaalmeeyo ayuu asna nagu dhiirigelin jiray walaashay idil waa u mahad celinaya halkaan joogta xudeydi ayadana mataqaanaa aabaheed oo aabaheen adeerkay xudeydi dadka aabahey saaxiib la ahaa ayuu ahaa buuggana uu ku qoran yahay oo ugu sheekeeyey mataqaanaa xiriirka aabahey iyo asaga dhex maray aabahey wuxuu aad u kaalmeyn jiray mataqaanaa fanaaniinta anaga maqaayad baan lahaan jirnay oo la dhaho jungal ama aqab ku taala magaalada xamar banaankeeda fanaaniinta wuxuu ku dhiirigelin jiray inay inta yimaadaan wax ku duubaan mataqaanaa heesaha ku sameeyaan mataqaanaa maqaayadan ay yimaadaan ayagoon lacag aan bixinin marka aad buu saaxiib u lahaa arinta Yasmin Foundation si la sheegay Yasmin waa gabar aan dhalay oo iyadoo jirto sanad iyo bar lagu dilay Soomaaliya Muqdisho ay dad Mooriyaan dileen 1992 buugga cutub dhan ugu sheekeeyay soo dhimatay iyo nin kamid ah dadkii dilay wixii dhex maray oo mataqaanaa iga cusub inaa cafiyo inkastoo marka hore aan inta ceejiyo dil lahaa laakiin aan markii dambe cafiyay ilaaha u mahad celinayaa sababta waa cafiyo wax kale maaha gabadheeda mar hore dhimatay ninka markuu ii imaanayay waa 2014 waa waalida ahay markii hore way gashay inaan mataqaanaa ku fikiray
inaan ka aarsado ama ceejiyo ama aan qora soo qaato mataqaanaa ama aan mataqaanaa aan meesha ku dilo laakiin alxamdulillah ilaahay qaboojiyey idejiyey waa cafiyey ninkii wax kale ma ahayn waxay ahayd saan sheegayna gabadheeda ima soo laabanayso isagana intuu ii yimid nin mataqaanaa ka mid ah dadkii dilay nin gabadhiisa inuu hor yimaado waa geesi aan dhihi karaa markaa cafiyana asna waa ooyey ana waa ooyey sababtoo ah waxbaa iga foqay asna waxbaa ka foqay marka buuggan waa ugu sheekeeyey oo waxaan dhahaa Soomaaliya waxay u baahan tahay in la heshiiyo waxay u baahan tahay in la isku yimaado in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah qofkii wax laga haleeyay kii laga dilay kii mataqaan wax haleeyay in la soo fariisto sida wadamada qaarkood ay sameeyeen ana ma dhahayo qof kasto qofkii wax ka haleeyay ama dilay ha cafiyo ma dhahayo laakiin waxa fiican isku hor yimaado la hadlo kadib mataqaanaa inay xal soo baxay ayaan aaminsanahay buugga waxaa kaloo ugu sheekeeyay ku qoran markii shaqadaan ka tagay 2015 socdaal aan ka soo maray Soomaaliya oo dhan ka bilaabo xamar ilaa waxaan tagay Berbera iyo Hargeysa wixii aan soo arkay wixii aan la kulmay taa waxaa ka horeysay 2018 ayaan hay'addan sameeyay Yasmin Foundation oo aan ka bilaabno koogii inaan ceel ka qodno xamar banaankeeda baadiyaha oo ceel dadka ay u baahnaayeen iskuul ayaan ka dhisnay ilaa hadda dhisan yahay waxyaabaha hadda igu dhiirigeliyey inaan sanadii u dambeeyey aan sii wado ama xoogga saaro inaan gargaarka aan mataqaanaa xoogga saaro waxaa ka mid ah inaan ardayda markasta u tago iskuulkaas aan sameynay ilmaha wax ka barta siday mataqaanaa ugu yihiin happy ama ugu faraxsan yihiin inay wax bartaan waddan gudihiisa iyo magaalada xamar gudihiisa waxaan kaloo gacan aan siinaa iskuulaadka wax laga baro ardayda qaba baahida gaarka Soomaaliya waa ogtihiin iskuulaadkaas hadda kuma badna ku yaraa jiro dad ay sameeyeen waa ugu mahadcelinayaa ilmahana badankooda ma helaan waxbarasho helaan reerkii dhalay ama qaba ilmo lixaad qaba iyo kuwo mataqaanaa wax maqli karin ama wax arki karin ama mataqaanaa special needska ilmaha la dhaho baahida gaarka qaba badanaa ama usually guryaha ayay joogaan guriga ayay iska joogaan kuwa kale ayaa loo diraa iskuulaadka waxyaabaha igu dhiirigeliyey waxaa ka mid ah sanado ka hor ayaa wiil ii yimid buuggan uu sheekay ku qoran yahay nin dhalinyaro ahaa wuxuu dhiganayay sanadkii labaad aan jeclahay oo jaamacadda uu dhiganayay Muqdisho wuxuu ii sheegay in uu rabo inuu la kulmo inuu rabo in hay'adda Yasmin Foundation ay gacan siiso waa kulanay wuxuu ii sheegay in ila dhasheen wiil iyo gabar aan wax maqli karin wuxuu yiri adeer markasto markaan jaamacadda ka imaado habeen kasto wiilka iyo gabadha walaalahay ah waan wax maqli karin buugteeda ayay soo qaadaan furfuraan isku dayaan inay aqriyaan wuu iskool ma aadin isaga wuxuu jiraa 20 sano jiraa wuxuu dhahay waxaan isku dayay markaas inaan barto sign language wuxuu galay YouTube-ka isaga ayaa isbaray sida loo mataqaanaa loo aqriyo ama sign language-ka loogu hadlo wuxuu dhahay muddo kadib markaan bartay ayaan bilaabay walaashay iyo walaalkay inaan guriga wax ku baro aan sign language wax ku baro waa fahmi kartiin wiilka iyo walaashiis gabadha oo walaalihiis ah waa wax maqli karin waxay leeyihiin saaxiibo kale ayagoo kale ah waa wax maqli karin wuxuu yiri maalmo kadib habeen kasta wuxuu dhahay ilmo kale imaanaya guriga ilmo kale imaanaya ilaa ay gaartay ilaa ay 40 caruur ah waa wax maqli karin inay guriga yimaadaan oo raba inay wax bartaan
isaga wuxuu yidhi kaligiis waaye way ka bateen ilmihii wuxuu subiyey wuxuu raadiyey macallimiin kale oo mataqaanaa ama dad kale oo yaqaan sign language wuxuu dhahay laba qof oo helay guri ku yaalla Madiina degmada Madiina ee Muqdisho ayuu raadiyey inuu kireeyo oo ka dhigo iskuul wuxuu jiraa wiilka waxa la Cabdiraxmaan 20 sano jira lacag badan ma haysto wuxuu dhahay waxaan raadiyey kuraas mataqaanaa ilmaha wuxuu baro inaan soo raadiyo kuraas soo helay guriga wuxuu dhahay kooban yahay 3 qol 2 qol wuxuu ka dhigeen iskuulkii qolna wuxuu ka dhigay mataqaanaa in macallimiinta ay ku nasaan wuxuu dhahay maalintaan bilaabnay inaan ardayda diiwaan gelino oo aan dhahno ardayda aan wax maqli karin ha yimaadaan iskuulka waxaa lagu talagaloo yidhi in kalaaskiiba ay 20 cunug ay fadhiisan karaan maalintii koowaad wuxuu dhahay waxaa timid ilaa 65 caruur hadda wuxuu dhahay waxay noo furan yihiin bilo weliba wuxuu dhahay ardayda badankooda waa masaakiin lacag isaga bixin xataa ma laha fiiga iskuulka badankood wuxuu ku dhigtaan lacag la'aan waxaana guriga kirada meeqa waa wuxuu dhahay guriga bishii kiradiis waa $200 laakiin caawa ku cashan karnaa ama ku qadin karnaa wiilkaas wuxuu gartay inuu lacagtaas raadiyo oo dad ka soo qaado si ilmahaas wax ugu bartaan faan miga aha alxamdulilah maalintaas is aragnay ilaa deertaan hay'adda Yasmin Foundation ayaa gacan siisa ka bixisa kirada iskuulkaas hadda waxaa la sheegay buugga lacagta laga helo in hay'adda ugu deeqay xasha Allah buuggan waa aragteen buug marka la qoraayo qoritaankiisa iyo daabacadiisa iyo soo qaadadiisa lacag ku bixis laakiin alxamdulilah go'aan baa gaaray in lacagta laga helo buuggaas aan hay'adda Yasmin Foundation ugu deeqo si ay u hesho lacag ay arday mataqaana u baahan gargaar mataqaana u gargaarto hadda wiiga hore darka aan sheegay Cabdiraxmaan ayaa gacan naga siiyay inuu iskuul kale inaan ka furno degmada Kaaraan ee Muqdisho iskuulkaas oo ardayda aan wax maqli karin wax lagu baro insha Allah marka daa waxaan sheegay inaan soo maray Soomaaliya aan meel badan soo maray waxyaabo badan soo arkay waxaan rabaa hadda xogaa emotion noqday xogaa kaftaan ku darayaa marka maxaa la waxaan la jooga wariyaal badan oo Kenya waagi markaan tagay Kenya 2004 waxaan ka tagay Canada ka tagay aan raxmar ah waqtiin wax ka saacunayo waxaan ku cunaa moos waxaan dhahay moos waxaan tagay xaafadda Islii aan ka doonay bariis iyo hilib waxaan dhahay waxaan rabaa moos alla keeno wiil la socday wuxuu yiri adeer mooska waxa uu dhahaa af Ingiriis indisi Swahili indisi oo yirmoota waxaan soo laabtay jimcihi kale isla maqaayadaan imaaday I'm trying inaan iska dhigo nin Swahili yaqaan moota waxaan rabaa bariis iyo hilib iyo mandazi aan dhahay عليك أنا برا عليك أنا بركوا ما سنتين أنا أدبر ما سنتين